quraanku wuxuu ka warramayaa shimbir sababtay in ummad dhame ay islaamto mac boqoradoodii. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu kaga warramayaa shimbir hudhud la yidhaahdo. culamada Soomaaliyeed waxay odhan jireen waa guuguule. shimbirka hudhudka la yidhaahdo ama guuguulaha Nabi Sulaymaan ciidan badan buu watay, afaf badanna wuu yaqaanay. maalin maalmaha ka mid ah ciidankiisii xaadiriyay buu wuxuu waayay guuguule ka mid ahaa ciidankiisii. dabeetana wuxuu yidhi guuguulahaasi ama cudurdaar buu la iman, haddii kale in la cadaabo iyo in la gowraco mid un bay noqon, waa la ciqaabayaa. guuguulihii wuu soo noqdaa wuxuu yidhi axadtu bima lam tuxit bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin. Nabi Sulaymaan waa axadtu bima lam tuxit bihi, war aanad koobin baan soo koobay buu leeyahay, aqoon baan hayaa. war waxaan ka imi buu yidhi Saba meesha la yidhaahdo waa Yaman, waxaanan ka keenay buu leeyahay naba yaqiin ah, war dhab ah baan kala imi Saba. waa maxay warku wada? innii wajadtu imra'atan tamlikuhum, waxaan soo helay buu leeyahay duul gabadhay xukunto, wa utiyat min kulli shayin walaha carshun cadiim. gabadhaasi wax kastoo boqortooyo u baahnayd waa la siiyey, kursi weyn oo sariir boqortooyana waa haysatay. oo hadduu soo arkay dowlad meel ka dhisan maxaa ku jaban? waa kan waxa ku jaban wajadtuha wa qawmaha yasjuduuna lishams, waxaan soo helay buu leeyahay iyada iyo tolkeed oo cadceedda caabuda ilaahay sokadii, oo shaytaan uu jidkii alle ka weeciyey oo lunsan baan soo helay buu leeyahay. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. waraaqay intaas ku qortay buu qaab waraaqdii baa loo geeyay. qisada maxaan uga jeedaa? النتيجة waa maxay? قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نتيجة waa maxay? hudhud ayaa wuxuu sababay in ay boqortooyadani islaamto ay tidhaahdo إني ظلمت نفسي, إلهي ونفتيدا وذلمي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هدهد كشقاد وقبتي وامحي وحو قرتي إساقا هي قولدان إن أنا يصفقرنا إن حتى هدو التوحيد كيو شيء لها دن محا حلقة وحا حلقة وحو الدوني دا كوغي هاي عدا يصفقرنا إياه ويا يصفقرنا إياه. قرآن كواكة الماما إياه إنه نبي سليمان لها يا أيها الناس علمنا منطق الطير. نبي سليمان خطبتيسii waxa kamid ahayd dada waxana la baray af shimbiraadka. Nabi Sulaymaan af shimbiraadku yaqaan. hudhudku markaasi wuxuu gartay inuu isagu risaalo xambaari karo ah warkan intuu qaado cid shaqadan qaban karta inuu gaarsiiyo, isagana af garanaysa, qoladana af garanaysa, tawxiidkana sharxi karaysa. qof muslimaan shaqada qaban karin ma jira, hatta haddaanad af garanaynin dadka daacad noqon kartaa, dadka diinta waad gaarsiin kartaa. maadaama shimbiriba uu ku guulaystay inuu bulsho dhan islaamiyo. waxaan leenahay ikhwati fi alcaqiida, waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan meesha culumaa joogto oo wadaadaa jooga oo hebel iyo hebel baa jooga oo dad diinta sheegaya jooga. war waxaa mas-uuliyadda kuma dhacdo, waayo qur-aanku wuxuu ka warramayaa magaalo 3 rasuul diiday, 3 rasuul magaalo diiday oo haddana niman 3 rasuul ba ahayn uu diin sheegayo. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. dadka waxaad u sheegtaa baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala tusaale uga dhigtaa magaaladii 3 rasuul ay yimaadeen إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. إلهي wuxuu ka warramayaa subxaanahu wa tacaala magaala rasuul loo diray markaasay beenisay, markaasaa mid kale loo diray markaasay beenisay, markaasaa mid saddexaad loo diray. haddaad soo gasho magaalo 3 rasuul diiday maxaad samayn lahayd? rusushani ama nebi kale ha soo diro mundiriin ha ahaadaan saa mufasiriinta qaar qabaan, ama rusul dhaba ha ahaadaan oo xagga rabbi ka timi. magaalo 3 caalim oo kaa waaweyn ay joogaan oo 3daba la diiday, ama 3 rasuul oo ilaahay soo diray joogto oo waxba laga dhageysan waayo, haddaad joogto adigu maxaad yeeli lahayd? halka yaabana istiraahada shaqadii rasuusha laga diiday adiga maxaa ku yaala? laakiin ilaahay wuxuu ina barayaa dhaqanka qofka muslimka sidoo wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u almursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. ibn Hubayra wasiirkii la oran jiray caalimka haba wuxuu leeyahay qisada yaabkeeda waxa kamid ah buu yiri ninkan markii alla sifaynayay
laguma sifaynin nin cilmi leh ama waxba laguma sheegin waxa lagu sheego qura maxay wajaa rajul inuu yimi xagee ka yimi wajaa min aqsa almadinati rajul ka waxa la tilmaamay muu ahayn nin xaadiro meelahan culimada ama rususha lagu diiday joogay magaalada dacalkeedu joogay aqsa almadina buu ka yimi wuxuu kaloo quraanku tilmaamaya yas'a warku markii uu soo gaadhay in rusushii la diiday ayuu magaalada dacalkeeda ka yimi waliba isagoo ordaya la leeyo rooraya oo raba shaqada inuu dhaqso u qabto markuu yimina muxuu sameeyay yaa qawmi ittabi'u al-mursaliin bulay janb ar-rusul buu ka hadlaya wuxuu leeyahay yaa qawm ittabi'u al-mursaliin wartalkayo rasuulada raaca waayo laba sababood ba ku raaca bulay ittabi'u man la yasalukum ajran raaca midaan ajar idin weydiisanin ajarku waa maxay waa mid aan magac maamuus lacag siyaasad waxba ka doonaynin qofka bini aadamka hadduu dareemo inaad dantiisa ku kacsanayso inta badan wax ma aqbalo waayo waxaanaad sheegayso gadaasheeda wuxuu ka akhrinayaa wax kale oo ku qoran oo ayna danahaaga adigu dee wadato in adigu business kuugu jiro ayuu dareemaya laakiin quraanku markuu rususha ka warramay fi suurati shu'ara nabi kasta sloganiska anbiyadu sideen ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ba kamida ilahi kaligii la caabudo maxaa kaloo nabi kasta la laha ku dadka qul la asalukum wax ajra idin ma weydiisanaya ku dhabala laha rususha waxa la leeyahay dawaa rasuulkii ilaahay soo diray dadka waxaad u cadeysaan ma asalukum alayhi min ajr xoolo idin kama doonayo ku dhaha idan wuxuu leeyahay ninka kani war marka koowaad waxa raacdaan cid aan dan idin kala hayn inay diinta ilaahay idin gaarsiiso mooyaane marka labaadna maxay ah wahum muhtadun iyagu hanuunsan quraanku wuxuu inooga warramayaa laba rasuul hadaynu kuwii hore xataa culimada tafsiirka qaadano quraanku wuxuu ka warramayaa laba rasuul oo talkood la jooga oo ilaahay gacantooda ku soo badbaadiyay oo haddana la beeniyay oo niman kale ka dhinac hadlayaan oo leeyahay war rususha la raaco إلهي القرآن كوحكت المامي قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما نبي موسى هي نبي الله هارون خير بنو إسرائيل بالله صادره خير بنو إسرائيل دلي إيو أدون سباي كسو صاره إلهي سبحانه وتعالى بضبوك لتشيحي فرعون يكوح دي بالهلاقي لكن وهلكو قبل أما جهادكم أول جهاد لفراقهم كم بيهايه waxa lagu yiri Soomaa arkaysaan in Ilaahay inta soo halaagay idinka hadaba waxa idin saaran in jihaatantaan oo Baytul Maqdis gashaan oo jawaabirada ku jira ka saartaan udkhulu al-ardh al-muqaddasah allati kataba Allah lakum dhulka alla idin qoray baa la yiri gala waxay yiraahdeen anagu galimayna hadii ay ka baxaan baanu galaynaa markii lagu adkeeyna waxay yiraahdeen adiga iyo rabbiga dagaalama adiga iyo rabbiga nabi Muuse u dagaalama innaha huna qaacidun anagu halkaanu sii fadheenaye fircoon ba ilaahay iyada u bariyo gacantaada lagu burburiyay qoladanna adiga iyo rabbiga isku dayaba yiri anagu waa sii joogeynaa laba rasuul baa la diiday markaas oo wacdi dhan waday markii la diiday ilaahay quraanka wuxuu ku sifeynaya laba nin oo kale aan rasuul ahayn oo waa maxay قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما قال رجلان وحصفه كلا لما سعته مجرد رجلان بلغوا سفيه لكن محل الراعي من الذين يخافون أنعم الله عليهما لمن وكوا الله كعبسنا يكمله وإلهي سبحانه وتعالى كن نعمة استجيسني ما يرجعني ما يكلاديك أي وحي كوي راهدين ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وراء الباب كوجلا اسكتوا مدح وجلا هذا أساس ما يسان إلا نقولك إلهي بايدين قرية قرآن كهلا يدنكو شيء جاي قرآن كوحينو شيء جاي الأرض التي كتب الله صلاة دبر يلا كلي كدونا وانكو قدرنا ولا وجوجنا هذه أي محاضرة واحد ما هي تدخل على waxa lagu yiri gala qisada waxa laga jeedaa waa laba nin oo laba rasuul oo la beeniyay ka dhinac hadlaya waxaan ku soo koobayaa dariska dhamaantii nabi maxamed alayhi salatu wasalaam goorma rasuul laga dhigay markiisa rasuul laga dhigay imisu xambaarsana iqra bismi rabbika alladhi khalaq wa maxay wa nabinimadii
رسول لماذا نعلم ماذا وحيد هذا يا أيها المدثر قم فأنذر كع دق بالليل كان استودوبه قم فأنذر مركي ليلي علم انت لك بكسو دقي يعني waxay noodan karnaa waxoogaa ru'yada ku arkay iyo labada aayadood quraana baa la tilmaamay waxaan ku soo koobaya markaa wuxuu yahay qof muslima oo aan diintan sheegi karin oo dad gaarsiin karin ma jiro laakiin waxa laga rabaa waxaad garanaysaa inaad gaarsiiso nabigu wuxuu yiri ballighu anni wala waaya ballighu ma shiitum lama oran ballighu anni buu ku yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam aniga wixii aan keenay dadkayga gaarsiiye laakiin waxa uu keenay dadka la gaarsiinaya waa maxay kutub akhriba hal aayadna ha noqotee faatixadu hadaba 7 aayadood mid kamid ah faatixadana ha noqotee dadka gaarsiin baa la yiri idan waxaan ku soo koobaya dariska kani dantan kale iyo dhami waa hal mas'alo ah war ma dareena mas'uuliyadda inay diintan mas'uuliyad inaga saarantay oo inaga saarantay inaynu hiil iyo hooba siino oo inaga saarantay inaynu faafino oo nafteena iyo gurigeena iyo qaraabadeena iyo dadka inoo dhow iyo basharka intiisa kala baynaynu gaarsiino waxay diintu hadda ku soo gaadhay saxaabadii nabiga iyo taabiciintii baa iska xil saartay oo faafisay imikana waxa muslimo dhan loo gumaystay u socon weyday inaga isku koobnay oo waxba waynu sheegi weynay waxaynu awoodi kari weynay inaynu basharka aynu la noolay siiba kuwiina kan gaalada dhex degani hadda cudurdar bay akhriidii noqonaysa gaalka lagu dhex joogi karo hadii aad diinta sheegtaan dacwada waxay ka mid tahay waxyaabaha baneeya in gaalka la dhex joogi karo hadii kale aakhiro joogistiina xataa ina cudurdar weyda ma ka baqaya waa mas'uuliyadiini waa cudurdaarkiini waa dantiini waa qaab loo cibaadaysto qaabka ugu fiican waayo qofka diinta soo gala wuxuu amal sameeyo dhan in leeg baa Ilaahay adigana ku qoraya hadaad midhoon islaamka ku darsato midkaasi wuxuu cibaadaysto oo dhan marka isaga loo qoro adna in leeg baa miisaanka lagu qoraya warada adigu 10 salaadood ma tukan kartid laakiin hada 10 ku darsato maalin kasta 10 baa tukanaysa hadaad rabto marka inaad jarkaagu bato oo aad aakhira badbaado oo aad nabi maxamed safiir rasmi ka noqoto ilaahay diintiisa la faafiyo sallallahu ala nabi maxamed wa ala alihi wa sahbihi wasallam ugu horeyn waxaan jeclahay inaan idin xasuusiyo albaabada ilaahay waa fur qof waliba oo muslimi horta ayuu ka daalin inuu ilaahay baryo ilaahay baa ballan qaaday inuu ka aqbalayo bal sheegay inuu ka xishoonayo adoonkiisa inuu gacmaha soo taago alla ka aqbali waayo uu ka aqbalaya idan kalsooni isku beera markaana ama dhibta ka cabanaysa in ilaahay dhibta ka qaado xanuunadana ka qaado islaamnimada iyo diintoodana ku sugo innagana islaamnimada iyo diinta in alla ina fahamsiiyo inuu sugo kuwii xambaare ummadda inta kala gaarsiinay inaga dhigo